السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalayaal maanta waxaan rabaa inaan xagan nagula wadaago taariikhdii ninkii asaasay dowladii ugu ballaadhneed ama ugu weyneyd ama handhaho imbratoriyadii ugu weyneyd ee caalamka soo marta ninkii asaasay ayaan rabaa inaan nagula wadaago walaalayaal taariikhdiisa. intaan walaalayaal taariikhda hore u sii gelin waxaan rabaa oo niga codsanayaa inaa channelka subscribe waxay siin in sharinka iyo gambaleelka iyo like-na intaba wada taabatiin. annagana taasi nogama aha amar laakiin waa codsi. annaga waxay noo tahay walaalayaal dhiirigelin bay noo tahay iyo inaan hore u sii socono. haddana walaalayaal waxaan hore iskaga galaynaa taariikhdeennii anoo soo koobaya taariikhda walaalayaal. ninkan asaasay dowladii ugu weyneyd taariikhda soo marta waxaa la dhihi jiray Genghis Khan baa la dhihi jiray. magaciisa Genghis Khan magacani waa laqab maaha magaciisa runta ah. magaciisa runta ah waxaa la oran jiray Temujin baa la oran jiray. ninkani wuxuu ku dhashay dowladda hadda la ilaaho Mongolia ayuu ku dhashay. taariikhdu markay ahayd mu'arikhiintu sanadii uu dhashay lama garanayo, laakiin waxaa la ilaaha wuxuu dhashay intii u dhaxaysay 1155 ilaa 1162 meelahaas ayuu dhashay. oo wuxuu ku dhashay webigan la ilaaho Uno oo iminka wadanka la ilaaho Mongolia caasimadiisana wuxuu u jiraa wax yar webigaas agtiisa ku dhashay. markuu dhashay Genghis Khan wuxuu dhashay aabihii oo maqan oo dagaal ku maqan oo qabaa'iladii kale ee Tataarka isleynayeen dagaalada ku maqan ayuu dhashay Genghis Khan. markuu dhashay Genghis Khan calaamad ayuu la soo dhashay. calaamadaasoo ah isagoo gacanta ku wata xidhmo dhiiga ama xinjiro gacanta ku wata. xilliga iyagu waxay aaminsanaayeen hadduu wiilka ku dhasho gacanta isagoo xidhmo dhiiga ku wata inuu noqon doono hogaamiye aad u weyn inuu noqonayo ayay aaminsanaayeen. xilliga magaca waxaa loo saaray Temujin ayaa loo saaray. Temujin walaalayaal ama Genghis Khan baan dhahne markuu da'diisu hay jirtay 9 jir uu 9 jir ahaa aabihii baa kaxeeyay qabiil kale ayuu u geeyay oo gabadh uga meheriyay. kadibna qabiilkiibuu uga imiday si uu reerka uu gabadha uga meheriyay uu la joogo oo u shaqeeyo oo dee dhaqamadoodii iyagu sidaa buu ahaa. waxay sidaa ahaataba markuu Genghis Khan 13 jir ahaa waxaa soo gaaray war ah inuu aabihii dhintay oo qabaa'iladii kale isleynayeen Tataarku hay sumeeyeen ayaa soo gaadhay. Genghis Khan wuxuu ku noqday qabiilkiisiiba ku noqday soo aabihii u bedeli lahaa maadaama aabihii meesha uu ka ah boqor ka ahaa inuu saga oo meeshii aabihii lagu bedelo ayuu rabay. qabiilkiiba ku soo noqday. reerkii qabiilku odayaashii waaweynaa waxa uu cuntami weyday wiil yar oo 13 jir ah inay amar ka qaataan. xilliga waxay wixiyeen qabiilkiisii saga iyo hooyadii iyo walaalihiiba way iska saareen oo duulka u saareen. xilliga saga iyo hooyadii walaalihii waxay iska galayeen duulka iska galayeen banaanada dhulka cidla iska galayeen ay iskaga noolaayeen qabowga iyo rafaad nolol adag ayay ku jireen. markii dambe Genghis Khan wuxuu ku guuleystay inuu ciidan waxaysto oo qabaa'iladii Mongolia ka jiray oo dhan oo la wada dagaalamo oo Tataarkii iyo qabiilooyinkii badnaa la wada dagaalamo. xilligii qabiilooyinkii oo dhan markuu ka wada adkaaday wuxuu ku guuleystay inuu mideeyo oo ciidan qura ka dhigo oo sidaa ayuu dowladii Mongoolka u asaasay Genghis Khan. kadib wuxuu bilaabay inuu ku duulo boqortooyooyinka ku duulo oo wala qabsaday ilaa Korea dhulka oo dhan buu soo wala qabsaday. xilliga dowlad aad u weyn bay u noqotay oo markaas wuxuu ka talinayay dowlad ka soo bilaabmata Korea China ilaa laga soo gaaro dowladda la oranay Khwarizm laga soo gaaro uu xukumaya boqorkii Mohammed bin Khwarizm Shah la oranayay. dowladdu xukumay inta laga soo gaaro oo dhan ayuu ninkii Genghis Khan ayuu ka talinayay isagoo dowladda inta leeg walaalayaal ka taliya. kadib Genghis Khan waxyaaluhu ku caanka ahaa walaalayaal waxyaalaha waxaa kamid ah
dowlad ama meeshuu galo wuxuu waxaynayay wax suuqayn dadka oo dhan waxa ku nool meesha oo dhan waa la wada leeynay dad hablaha waa la kubsanayay ragga oo dhan iyo waa la wada leeynay dad nacam may hayn in rag u socda inay dad qabsadaan ay u taliyaan inta u badan may hayn meeshay galaan way xasuuqayeen xilliga waxay ahaayeen dad ooman oo ku ooman dhiiga dadka dad nixin ayay ahaayeen oo soo marta taariikhda adduunka nacam mu'arikhiintu waxay idhaahaan waxay dileen ay laayeen dowladda Iiraan la idhaaho dadka ku nool marka saddex loo qayb kamid ah way laayeen nacam waxa la yiraahdaa ilaa 40 malyan ayaa lagu qadaraa dadkii dileen wuxuu ahaa nin dadka hadii agtiisa ay dhamaanayaan soo taagan buu ahaa oo aad u naxariis daran buu ahaa ninkan waxyaalihii oo kamid ah ee la qoro uu lahaa waxyaalaha kamid ah isagii oo yar ayay walaalkii isku qabteen cunto walaalkii waran buu geliyay cuntadii ku dilayba nacam naxariis muu lahayn nin naxariis muu lahayn ninkaasi kadibna dowladii isagu asaasay wiilashoo dhalay waa si aan baqaaday ilaa Yurubta ilaa waxay dowlad Cabbaasiya oo kuwisay ayay baabi'iyeen ilaa Ardushaan bay imaadeen nacam dowlad aad u weyn bay waxeeyeen isaga soo asaasay oo u ahaa in asaasihi dowladda markuu dhintay waxaa la yiraahdaa wuxuu u dhintaa la yiraahdaa faras buu ka dhacay xilliga faraskii sababta markii dhaawacii ka soo gaaray ayuu u dhintay markuu dhintay meydkiisii baa la qaaday ee la aasayay meeshuu ku dhashay baa lagu aasay baa la yiraahdaa ilaa hadda lama garanayo qabrigiisu xaguu yahay ciidankii meydkiisa waday dariiqay maraya socdaan ee meeshay ku aasayeen intay u sii socdeen oo dhan haddii arkaan dad meelaha ka garab dhaweeleynayeen si aan loo ogaan meeshuu lagu aasay ninkan qaa'idka ah meeshii lagu aasay si aan loo ogaan ilaa iyo hadda lama hubo oo lama garanayo meeshuu lagu aasay Genghis Khan qabrigiisa dib loo foqo inuu adduunkan babaabayo ay masiibo ku dhacaysay aaminsan yihiin meeshuu ku aansan yahayna waa meel iyaga u ah muqaddas ay ka barakaystaan xilligaas markii la aasay baa lagu leeyahay ee raggii waday meydkiisa ay aaseen qabrigiisii waxay ku waxeeyeen kun fardo wadata ayaa qabrigii meeshii oo dhan ku wareegtay si qabrigiisa dul wareegtay si loo kala ogaan meesha wax lagu aasay iyo in kale si loo ogaan ay saa u waxeeyeen nacamde waxay ka dhigeen meel qabrigiisa lama garan jirin kaasi nin taariikhda nacamde soo mara ugu gacan dhiigla ah ayuu ahaa in mu eegeyn gaala iyo muslimiin wuxuu dad ama dowladu ku soo duulo oo dhan inta ugu badan uu xasuuqayay ha u badnaadaan dowladihii muslimiinta ee waqtiga jirayna aad ayuu u xasuuqay oo taariikhdu wax qurux badnayn ayay ka qortaa xasuuq inta la eg nacam dowladii dowlad Cabbaasiya markii inanku awooga oo ahaa ay howlaa kala oranay markuu soo duulay wuxuu ka yeelay taariikhdu waa qorta taariikhdiisu walaalayaal waa sidaa bahayd inaan ninka taariikhdiisa siiro kooban uga hadlo waxaan iga tagayaa in assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh